Waxay ahayd xaflad qurux badan, jawigu waxa uu aroos, laakiin 3 dhalinyaro ah oo Soomaali ah ayaa ugu dambeyn waxaa lagu dilay bartamaha xafladda arooska. Fadlan daawade, marka hore muuqaalka like noo saar, isla markaana xogtan oo faahfaahsan ayaan u sii gudagelaynaa mahadsanid. Waxay ahayd dhacdo xanuun badan, isla markaana waxay ka dhacday cariga dalka Mareykan, magaalada West ee Jordan, hotel ku yaala isla markaana waxaa ka socotay xafladaas oo ay dhiganayeen dhalinyaro Soomaali ah xilli ay u tageen aroos inay ka qayb qaataan farxadda xilliga meesha ka jirta goobta. Balse mar qura waxaa soo weeraray booliska dalka Mareykanka, kuwaasi oo aad loogu sheegay in isla markaana meesha arooska ka dhacaya ay ka jirto carqaladeen iyo sidoo kale dhibaato laga soo warinayo. Laakiin dhalinyaradii Soomaalida ee u tagay hotelka saaxiibadoodna waqtiga la qaadanaya ee dalka Mareykanka ee magaalada West ee Jordan ayaa mar qura saddexdooda waxaa bartamaha arooska oo xafladda oo socoto waxaa ku dilay ciidamo boolis ah, kuwaasi oo ka tirsan ciidamada booliska ee dalka Mareykanka. Mar qura waxaa shoog argagax laga dareemay guud ahaan xafladda arooska oo dhan. Lamaanaha iyo sidoo kale lamaantii oo guursada ayaa mar qura shoog iyo argagax, dadkii oo dhan ayaa geesaha ka kala carareen xilli ay aad ula naxeen dhacdada meesha ka dhacday. Jawigu daqiiqado qura waxa uu ahaa mid wanaagsan, aad ayaa heese kala duwan uga daarnaa hoolka. Lamaanaha iyo sidoo kale lamaantiis aad ayay ugu faraxsanaayeen bandhigga cajiibka leh ee ka socda magaalada West ee Jordan. Mar qurase waxaa soo galay boolis, kuwaasi oo dadka argagax ku fureen, ugu dambeynna 3 dhalinyaro ayay ku dileen goobta xafladdu ay ka socotay. Dhalinyarada maalmihii dambe dalka iyo dibadda meelo walbaba waxaa loo geysanayay dilal aan la iska weydiinin kooxaha geysta. Haddii la ogaadane gadaal dambe cadaaladda ma jirto ilaa cadaaladda Alle laga helo mooye. Mar qura hooyayaal ayaa mar kale ku gablameen, hooyayaal ayaa ilintii uga daadatay, kuwa qaar sida aan xogta ku helnay hooyooyinkood ayaa ku sugnaa bartamaha xafladda, walaalahood ayay sidoo kale farxadda xafladda la qaadanayeen. Laakiin arooskii markii dambe isku bedelay dadka meydka laga soo daabulo. Arooska iyo caruusadana ayaa goobta iskaga kala cararay oo labadooduba ismayna raacin xilli dhacdadu ay noqotay mid argagax badan. Wiilka caruuska ayaa goobta xilli xabadaha markay bilowdeen waxa uu ka fakaday dharkii uu watay. Aad ayay u xanuun badneed dhacdadan ka dhacday, waxayse kulansadeen dhacdooyinkan xanuunka badan, meyd iyo sidoo kale dhaawacyo argagax badan. Mareykanka ayaase 3 dhalinyaro ah waxaa lagu dilay magaalada West ee Jordan xilli xaflad aroos ay saaxiibadood ula soo aadeen in ay kala qayb qaataan farxadda maalinta. Laakiin waxa uu noqday xafladii quruxda badneed, daqiiqadihii jawiga degnaa, daqiiqadihii dambena ay noqotay meydka iyo dhaawaca in laga kor tilaabsaday isla markaana ay noqotay mid xanuun badan. Alla ya raxmo walaalahayga, fadlan aan u duceyno walaalaheen.